waxaan halkan ku qabanaynaa shir ama war-saxaafadeed ku saabsan faragelinta wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku hayo guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, Muqdisho, taariikhdu ay tahay 28 bisha koowaad 2026. waxaan si weyn walaac looga muujinayaa haddii aan nahay xiriirada hoos imaada guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed faragelinta sharci darrada ah oo wasiirka wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada isboortiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ku hayo howlaha iyo madax banaanida guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed. waxaa la xaqiijinayaa in wasiirku abaabulayo tallaabooyin lagu doonayo in lagu sameeyo xiriiro iyo golayaal aan sharciga iyo dastuurka midna ku dhisnayn, kuwaas oo ujeedkoodu yahay in lagu kala diro ama sharciyad ka qaadis guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed. guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed ee maanta jira waa mid waafaqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah, waxaana la doortay 1 Oktoobar 2024. ficiladan waxay si cad uga soo horjeedaan xeerka Olombikada adduunka Olympic Charter qodobkiisa 27aad farqadiisa 6 oo cadeynaysa in ay mamnuuc tahay in la farageliyo guddiga Olombikada Soomaaliyeed siday u shaqeeyaan, qaasatan in faragelintu ka timaado dhanka dowladda iyo siyaasadda intaba. 2 shuruucda iyo xeerka guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed ayay ka soo horjeedaa ficilada uu ku dhaqaaqayo. waxay kaloo ka soo horjeedaa dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo damaanad qaadaya madax banaanida hay-adaha rayidka ah iyo ururada isboortiga. waxa kale oo wuxuu kaloo ka soo horjeedaa xirnaamyaha sharciga nidaamka xukuumadda, kaas oo ah kan wasaaradda isboortiga loo idmaday qodobkeeda 49aad farqadiisa 6. waxayna leedahay horumarinta iyo dhiirigelinta tartanada ciyaaraha ee dalka gudihiisa. sida aad ka warqabtaan, wasiirku wuxuu albaabada u xiray meel kasta oo ay dhalinyarada tababar ku sameyn lahaayeen, ayna ku soo bandhigi lahaayeen xirfadooda. su-aasha isweydiiska u baahan oo loo baahayo inuu wasiir ka soo jawaabo waxay tahay, haddii dhalinyaradii garoomadii laga xirtay maxay qabanayaan? tan kaloo meesha taalna waxay tahay, naadiyaha qarash ku bixiyo lacag siiyo, naadiyadana maanta waxay taagan yihiin haddaysan cayaar dheelaynin ay magacayna nagu matalaynin maxaan mushaahar u siinaa? 5 mabaadi'da dawliga iyo maamul wanaagga ayay ka soo horjeedaa. iyo ugu dambeyn qodobka 6 oo ah mabaadi'da kala saaridda awoodda. maadaama wasiirku uu yahay uunan lahayn awood sharciyeed uu ku soo fargeliyo, waxaa habboon in uu ka gaabsado. waxaan u sheegaynaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga in uu joojiyo isku dayga guracan ee dhaawacaya sumcadda isboortiga Soomaaliyeed, khatarna gelin kara xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya la leedahay hay-adaha Olombikada adduunka iyo ururada isboortiga caalamiga ah. faragelinta noocan waxay keeni kartaa in laga aamin baxo hay-adaha dawliga ah ee dalka, in la burburiyo nidaamka sharciga ee isboortiska dalka, in si toosa loo dhaawaco mustaqbalka dhalinyarada iyo ciyaartooyda Soomaaliyeed ee mustaqbalka ka leh inay matalaan qarankooda. waxaan ugu baaqaynaa annagoo ah dhammaan xiriirada hoos yimaada guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed, in wasiirka dhalinyarada isboortiga in uu ixtiraamo sharciga kana fogaado faragelin kasta oo ka baxsan awoodda sharci. hay-adaha qaranka ay khusayso in ay ilaaliyaan madax banaanida guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed, iyo in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda isboortiga in ay si midaysan u difaacaan sharciga iyo xuquuqda hay-adaha isboortiga. gunaanad, isboortigu waa hanti qaran, mana ahan goob lagu fuliyo dana siyaasadeed. guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed waa hay-ad sharci ah, sharci ayaana lagu ilaaliyaa. sharcigu waa ka sareeyaa qof kasta.
faragelinta isboortiga waa dembi sharci iyo mid anshaxeed. Sharciga waa in la ixtiraamaa, isboortigana waa in laga ilaaliyaa faragelinta siyaasadeed. Dhammaad. kusoo dhawaada isbitaalka Shaafi hoyga tayada aqoonta iyo daryeelka bukaanada. isbitaalka waxaa diyaar kuugu ah in ka badan 20 dhakhtar oo takhasus kala duwan leh, kuwaas oo khibrad iyo waayo-aragnimo dheeraad ah u leh adeegyada ay ku siinayaan. isbitaalka wuxuu soo kordhiyay adeegyo cusub sida qaybta la tacaalida kansarka oo si heer sare ah loo qalabiyay, qaybta daweynta kaliyaha iyo kaliya dhaqista, qaybta MRI, CT scan iyo raajada naasaha, shucaaca burburiya dhagaxaanta kaliyaha, ICU casri ah, tubooyinka endoskobiga iyo bronkoskobiga. isbitaalka wuxuu fuliyaa qaliimada casriga ah ee laparoskobiga iyadoo la isticmaalayo qalabkii u dambeeyay, sidoo kale qaliimada jajabka daamanka iyo wejiga, qaliimada lafaha iyo bedelista jilbaha. isbitaalka wuxuu markii ugu horeysay dalka ka bilaabay qaliimada aan dhaawac lahayn ee lagu sameeyo hanaanka ERCP ee lagu xaliyo dhibaatooyinka marinada xameetida iyo tubooyinka ganaca. Shaafi Hospital, xanuunkaaga ku sheega afkaaga hooyo.